sheekh qof kale ayaa wuxuu leeyahay waxaan ahay askari ka mid ah ciidamada Dutch Special Force ma ii banaan tahay inaan askari u noqdo Holland aniga oo muslim ah laakiin si ku meegaar ah hadhow waxaan rabaa in aan u noqdo dalkayga Soomaaliya alxamdulillah inta aan ogahay ninku markuu ciidan wadan u noqdo ciidamadu dawladda iyo nidaamkan jira bay walaa u haynayaan markuu ciidan u noqdo wadan askari wuxuu u diyaar garoobayaa ama uu aqbalayaa ama qoraal ha ku aqbalo ama curfi ahaan ha u aqbalo dhaqankii caadi iyo mafhuumka la isla yaqaan sida han noqdee inuu wadanka difaacayo u dhimanayo xaaladda sidaas oo kale tii asal ahaan ma banaana in askari u noqoto ama Holland ha noqdo wadan kale ha noqdee wadan gaala askari inaad u noqoto oo ciidankooda ka mid noqoto oo xeerarkii iyo qawaaniintii iyo dishibliinkii ciidanka aad saxiixdo برينا هذه حالتي ما ضد حرنتي يا فرنتي اللي ربا لغو geynayay ما بنانا الصلاحان ما بنانا waxay culimadu ka hadlaan haday muslimiin meel aqaliye ku ah mustadcafiina duruufo gaar ah la soo darsaan muslimiintu hoggaan siyaasadeed iyo culimo ay leeyihiin dantoodii iyo maslaxadooda daruuriga ana meelaha qaarkood in la gala ay keenayso bay culimada qaar ka hadlaan tamaraajiceedii iyo masterkeeduna ama fiqiga la yiraahdo fiqul aqaliyaat ama han noqdo mid kan uu qoray risaalada magisterka uu leeyahay maxamed salaama darwiish oo mulqura laga qaatay ama al-aqaliyat al-muslima fi al-jihad wal-imarati wal-ibadati iyo waxa la midka ama han noqoto midan uu qoray Suleyman Maxamed Suleyman Tobol yaknin la yiraahdo isaga magister uu ku qaatay al-aqaliyat al-ahkam as-siyasiyya lil-aqaliyat al-islamiyya culimada fataawa badan soo guuriyay haddii meeshaas aynan jirin muslimiin isku duuban وهجان سياسي مرجع علمي عليه ومسألة ظروفته انتي قيميا مصالحية مفاسد جريئي وحددي واحد جلس هدير الشرين أصلكم ما بنانا وقال هذا ولا سين تودا دفاع هذا حراه هذه الرأي الله هوسكال كذا ما بنانا بالله توفيق